ragga iyo dumarka mararka qaarkooda waxa qabsada arrin oo murugo u keenaysa guurka kadib arrintaas oo ah qofka inuu gudan waayo waajibka ka saaran qofka kale marka hore ragga ayaan ka bilaabaynaa ninka marka uu guursado waxa uu galayaa sheeko cusub oo ah raaxada gogosha inta badan dadka kuma fashilmaan raaxada sariirta laakiin waxaa dhacda mararka qaarkood nimanka inay awoodi waayaan galmada laga reebay ama xaaska inay tahay xaas aan raaxada sariirta ka dhargin oo u baahan muddo dheer ninkan aan awoodin biyo baxa degdega ama geedka oo ka jilicsan awgeed ragga qaar marka ay isku arkaan kacsi yarida isla markii waxay raadiyaan daawo kacsiga kordhisa sida la og yahay daawada dareenka ragga siyaadisa waa halisiiba nimanka marka ay gaaraan 40 sano waxaa laga yaabaa inay jiro u keento ragga waaweyn marka ma aha ninka inuu ku degdego daawada ama kaniinka kacsiga waxaa haboon inuu cuno cuntooyinka tayada leh oo keenaya dareenka ragga sidaan sheegnay cuntada kacsiga laga helo waa badan tahay waxa ugu muhiimsan waa kalluunka iyo digaaga iyo hilibka iyo dhammaan cuntada nafaqada leh taas ragga iyo dumarkaba way anfacaysaa waayo gabdhaha qaar iyagana dareenkooda hoos buu u dhacayaa oo ma dareemaan raaxada guurka ama istiinka xaaskooda iyagana waxaa ku haboon inay cunaan cuntada siyaadisa raaxada ninka iyo naagta way cunayaan cuntada nafaqada leh siba naagaha waa inay cunaan basbaas iyo sanjabiil sidoo kale saliid saytuun iyagu nin iyo naagba way kicisaa waayo waxay furtaa xididaha dhiiga qaada